Maalowito anigoo maraya wadooyinka Burco mid ka mid ah oo meel ku degdegaya ayaa waxay hor socotay arday dhigata markaan diriskooda eegay fasalka hoose dhexe sidii ay hor socdeen ayaa mid ka mid ah waxay tiri oo waliba aan soo gaaray oo aan la simanahay mid ka mid ah waxay tiri dhawaan waxaan doonayaa inaan guursado oo aroos la yaab la samaysto oo waliba nacabkana iska tiiriyo waxa intaa ay si raacayso oo ay ku dartay waa inaan u yeedhaa fanaanka aadka oo codka macaan Cabdikariin Cali Shaah tana mid la socotay waxay tiri wallahi fanaanka socod macaan dabeetana tii kale tii saddexaad waxay tiri Ali Saki ka war labadii mid ka mid ah ayaa waxay tiri adigu fanaanka wax ka sheegtay kadib dabeetana tiiba adigu labadii hablood ayaa isku booday adigu way isku bilaabeen aniguna waan iska dhaafayo war istaayana ma oran hala kala qabtana ma oran sidaas aan ku dhaafay waxaan is weydiiyaa waxaan la yaabay 10 jirka anu dadka kale magaalooyinka kala garamayo in Soomaalida kale ay dhaqankaana la qabto laakiinse adigu social media waan ku arkay qaar ka mid ah Soomaalidu horta nacabkan iyo cadowgan ay sheegaan inta badan hadal hayaan waliba dumarku halku jooga moomada kale aan la arkin ba ma waxa weeyaan ma qof mid kasta oo majaarkiisa is hayaan arintaas afaham waay ta kale aan la yaabay waxa weeyaan fanaan inta wax khayr horta ama arooskooda si wacan oo maray Sheekh Hebel ha loo yeero ama waxa weeye culimadaas ha loo yeero Quraan akhriso horta waxaan jiraa ma jirto hadii jirtana oo yari laakiin qoomka imka kacay daadan dhaxay kuwa ka yareerba fanaan bay wada doonayaan marka anu taas la yaabay waxa weeyaan inta kale reer Burcaan dadka oo ka sii xaq jiraan oo inkastoo bini'aadamku ay mustaqbalkooda fakaraan laakiin reer Burcaan la mid maaha yaraantaas qof walba ku fakaraya isagoo yar buu cararayaa ama wiil ama gabar hadii aroos la isku waafaya hawo qofka isagoo aqliyan buuxsamin adoon ahayn sheeko kalena waan maqlay Burca ka dhacday aroos dhan oo kala kacay fanaan yani fanaan loo yeeray gabadha ay tir fanaan Hebel noogu yeer arooska nooga heeso oo dad balamis kadibna inankiina uu moojidiro fadhaqaale iyo si kale ugu yeeray waa fanaanku yeeray marka hortana qoliyahan fanaaniinta aroosyada ka heesa labada nin ee aroosyada aan sheegay marka qisadan ay ku saabsan tahay inay inugu ma bahaysanba inay aroosyada ka heesaan anigu waxaan moodi jiray xidigyal meelaha adigu shooyo ku qabta ayaan moodi jiray markii aan sheekada daba galay yani aan baaray aroosyadan laga heesay yani fanaaniintan in fanaanin la soo kireysto shirkada maanta idin la wadaagay halka ay noogu joogto page-kana like saara cidii aan follow garaysnayna follow garayso muuqaalkana like gareeya siina share gareeya wixii sheeka aad hayso ama sheekadii kugu la yaabka badnayd xagga luuqa noo soo dhig nala soo wadaag si aan iyadoo la xamaysan aanu halkan soo galino muuqaalkan muuqaalka xigeenteen ku kulmi doono waxaa idiga tagaya nooli kulanti bye bye